Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaad nagala socotaan waa Abman TV iyo aniga oo Abman ah. Dhammaan waa salaaman tihiin asxaabta ku xiran channelka asxaabta nagu cusub ee soo booqatana waxaan leenahay fadlan subscribe iyo like iyo share taba noo saara channelka Abman TV iyo aniga oo Abman ah oo dhammaan idinla hadlaya kuna soo dhawaada channelkayga iyaan idin leeyahay. Assalaamu calaykum asxaabta. maanta waxaynu ka hadlaynaa maadaama oo aan ku suganahay dalka qurbaha gaar ahaan dalka Jarmalka cudurka coronavirus iyo dhibaatada uu ku hayo adduunka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee sidoo kale uu saameynta uu ku yeeshay dhanka ganacsiga xitaa dhanka nafaha bini'aadanka dhaqaalaha wax kasta isku socodkii booqashadii asxaabta wax kasta dhakhtar booqashadii xitaa waa halis weeyaan maanta. waxaanu ognahay coronavirus inuu kasoo bilaabmay cudurkani Chinaha oo uu yahay virus ka yimiday China food cuntada ay cunaan dadka Chinaha ah oo mararka qaarkood iyo inta badanba ay cunayaan cuntadii oo wixii oo nool kadibna halkaas iyo virusku ka yimiday waana meeshu kasoo bilaabmay adduunka in yar baanu marin adduunka saas u maray sida dabaysha oo kale u maray waa virus halisa waa virus ku noolaan kara qabowga markaasi in badan. haddaba cudurkii kasoo bilaabmay China wuxuu weerar ku qaaday ballaaran adduunka oo dhan balse hadda marka la eego dalka ugu xaaladda xun maanta marka laga yimaado China oo hadda idaacadaha iyo TV-yadu iyo dowladda China-huba ay cadaysay in uu viruskii ka dabar go'ay dalka China sidaa darteedna dhakhaatiirtii China ee halganka kula jirtay cudurka coronavirus ay hadda dowladaha adduunka ay caawinayaan waa kooxda dharka cascas ee magacooda la yiraahdo China Medical Team. kooxdaasi hadda waa kooxda adduunka wareegaysa Talyaaniga iyo hadda ku sugan yihiin waana kooxdii la dagaalanka viruska corona. haddaba dowladda China oo ahayd meeshii uu kasoo bilaabmay virusku waxay hadda sheegtay in uu dalkeedu aad uga wanaagsan yahay cudurkii dilaaga ahaa ee coronavirus balse dowladda waxay sheegtay Chinahu in uu adduunka si xun u galay cid kasta oo na soo dalbata iyo cid kasta oo aanu go'aansano inaanu la shaqeyno oo aan kala shaqeyno viruska la dagaalankiisa inaanu kala dagaalami doono. haddana waxaa adduunka sidaa u wareegaya kooxda magaceeda loo yaqaano China Medical Team oo ahaa kooxdii la dagaalamaysay cudurkii coronavirus. haddaba aynu usoo noqono barnaamijkeena coronavirus waxa weeyaan sidaynu sheegnay wuxuu kasoo bilaabmay China wuxuu maray adduunka oo dhan. Iran buu maray meel aanu marin ma jiro xitaa Washington DC oo Mareykanka ah waxa weeyaan dad buu kaga dhacay oo dad fara badan waxa weeyaan tiro aan cadadkeeda la koobi karin buu hayaa. Talyaaniga isaga warkiisa daa waa meesha maanta marka China laga yimaado la oran karo cudurku waa baabi'iyay. haddaba daawade ama dhageyste Soomaali haddaa tahay cudurkani waa cudur dilaaya waana cudur halis ah waa cudur fidaya oo si degdeg ah u fidaya waana virus afka sanka ama dhagaha intuu jirkaaga meel ka galo kadib waxoogaa muddo dhowr cisho aad degayo cunahaaga iyo madaxaaga kadibna u dhaadhacaya sambabaduna sidaynu wada ognahay waa meesha qofka bini'aadanka ah oo ka qaato oxygen-ta. haddii sambabada uu ka dhaawacana waxa weeyaan wuxuu qofku halis u saaran yahay ama qarka u saaran yahay in ay u sababto in uu ku geeriyoodo. sidaa darteed maxaa laynooga baahan yahay haddaynu shacabka Soomaaliyeed nahay dowladaha aynu ku noolahay digniino iyo sidaa iskaga soo daba dirayaan ay dadka shacabka ah u digayaan digniinahaasi inaad qaadataan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan meeshan dhulkan ama dowladaha uu soo gaadhay cudurka coronavirus. gaar ahaan waxaan la hadlayaa dadka qurbaha ama Yurub ku sugan gaar ahaan Yurub ku sugan qaaradda Yurub iyo Soomaalida ah iyo waxaan leeyahay cudurka coronavirus waa mid daran oo gudbaya qofkana ku dilaya sikadiisa looma hayo dawo looma saweyn dawo mana laha xitaa dawo caawisa cudurka coronavirus oo qofka ka caawisa sida dawada AIDS-ka sida kaalmada AIDS-ka uu leeyahay oo kale. AIDS-ku saan ognahay ma laha dawo qofka ka bogsisa laakiin wuxuu leeyahay dawo qofka caawisa oo muddo uu sii qaadan karo nolol ilaahay baa nolol haye. haddaba
shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay war dhammaantiin cudurka coronavirus ka digtoonaada. Waxaad kaga digtoonaanaysaan waxyaabaha aad kaga digtoonaanaysaan ayaa ah in aad farihiina aad maydhaan waqti kasta oo aad gurigiina joogtaan iyo waqti aad ka baxaysaan iyo waqtiga aad imanaysaanna intaba in aad farihiina ka shaqaysaan iyo nadaafadda. Waxa kale oo aad ogaataa in aanad salaamin qof aanad aqoon u lahayn ama meel aanad la deganayn. Waxa kaliya oo aad inaad salaanta laga yaabaa qofka guri aad wada degan tihiin, qof saaxiibkaaga oo meel ka fog degan ama dadkii asxaabtaada iyo salaantii badnayd iyo gacan isa saarkii dhammaan meesha waa ka baxeen maadaama laga baqayo inuu coronavirus la isku gudbiyo oo si degdeg ah la isku gudbiyo. haddaba waxaad ogaataa daawadaha Soomaali ama dhageystaha Soomaaliyow inuu cudurkani ku gudbayo si yar oo fudud. Ha u tagin asxaabtaadii faraha badnayd 10 qofkana qof kastana mitir wax ka badan u jir qofka maadaama cudurka coronavirus uu markuu qofka coronavirus haya uu qufaco uu boodi karo virusku uu boodi kara ilaa mitir. laakiin waxa loo baahan yahay inaad u jirsato mitir iyo badh ilaa 2 mitir. sidaasi yaas kaga ilaalin kartaa. tusaale ahaan marka aad qufacayso ama cudurka qab ama ha qabine ama haddaanad cudurka qabin waa inaad xidhaa qufacaaga. qofka agtaada ka qufacaya waa inaad ka fogaataa oo aad ka durugtaa. biraha tareenada basaska iyo waxyaabaha la raaco ama dhulka la cuskado waa inaad farahaaga ka ilaalisaa oo aanad bir kasta fartaada aanad saarin. iibso dawada alcoholka oo farahaaga marka aad maydho ku maydh iyo waqti walba si aad uga taxadarto cudurkan dilaaga ah ee qaaradda ku ciyaaraya waa coronavirus. magaalada aan deganahay hadda anigu ama gobolka aan deganahay oo gobolka Rhineland Palace ee dalka Jarmalka. gobolkaasi iyo dhammaanba Jarmalka oo dhan wuxuu ku hayaa faraxun balse runtii waxa la oran karaa waa gobolka maanta Jarmalka ugu daran. waxaan leenahay ilaahay ha naga badbaadiyo annaga iyo intii ummadda Nabi Maxamed ya rabbil caalamiin. cudurkan waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay taxadar, wuxuu u baahan yahay nadaafad, wuxuu u baahan yahay wax kasta oo aad hore u sameyn jirtay inaad yarayso dhammaanba. dowladda Jarmalku waxyaabo badan bay sheegtay hadda waxa weeyaan in qof kasta oo aan wax shaqo ahaynin waxa dowladda Jarmalku ay u sheegtay in uu gurigiisa joogo haddii aanu qofku wax shaqo ahayn. haddii qofka wax shaqo ahayn ee gurigiisa ka soo baxa suuqa lagu qabto waxa ku dhacay ganaax lacag cadadkeedu badan tahay lagu ganaaxayo qofkaasi. sidaa darteed in lagu ganaaxo iyo inaan lagu ganaaxinba waxa ka horeysa in aad ka taxadarto cudurkan dilaaga ah. Jarmalka maalinta ka dambaysa dowladdu waxay soo rogaysaa go'aamo istaba yaala. go'aamadaasi oo ah go'aamo ku salaysan baqdin iyo iska difaacid cudurka coronavirus. maanta Talyaaniga dhimashadu waxay sii maraysaa 50,000 oo qof. runtii waa xasuuq aan inaba caadi ahayn. waxaanad ogaataa in uu xanuunkani dadka waayeelka ah dhammaantood uu hore u dilayo. dadka waayeelka ah dadka ku dhimanaya inta badan ee u geeriyoonaya waa dad waayeela. midda kale qofka xanuuno kala qaba sida macaanka, dhiigkarka iyo xanuunada xunxun waxa weeyaan kuma hakanayo cudurkani ee isla markaaba wuxuu u sababaya inuu qofku ku geeriyoodo. Talyaaniga maanta markii ay kala guri kari waayeen dhakhaatiirtii Talyaaniga ama qolooyinkii caafimaadku waxaa loo dalbay militarigii Talyaaniga oo waxa lagu gurayaa baabuurta militariga ee infantryga ciidanka dagaalamaya lagu qaado. Talyaaniga dhimashadu 50,000 bay maraysaa. dhakhaatiirta cidda jiiftana warkeedaba reeb bukaanka ah ee coronavirus hayo. sidaasi ay tahayna wuu sii fidayaa. hadda waxa u soo gurmaday 3 diyaaradood oo ay saaran yihiin dhakhaatiir caafimaad iyo kuwa kaalmeeya oo ka soo duulay dalka China. waana kooxda la magac baxday China Medical Team. kooxdaasi oo adduunka saa u wareegaysa oo rabta inay cid walba caawiso. China xanuunkii waa la dagaalamay waana dadaalay balse Mareykanku wuxuu fahmi la'yahay xanuunkan coronavirus
ogoogna oo coronavirus waxaa ku dhex jirta iyana siyaasad laba dhan ah oo wada dagaalamaya waa Maraykan iyo China. China adduunka wuxuu tusay inuu dadka caawinayo uu dowladaha caawinayo inuu kala dagaalamo coronavirus. Maraykankiina coronavirus buu ka fajacsan yahay oo madaxweynaha Maraykanka ee Donald Trump maalinna wuxuu leeyahay waxan wax jira maaha, maalinna wuxuu leeyahay cudurkani waa halis. oo taasina waxay ku cadaynaysaa in khalkhal uu jiro Maraykanku xanuunkan in aanu fahansanaynba wuxuu yahay una diyaarsanayn, waana xanuun si degdeg ah dadka ama adduunka ugu soo booday. Ka taxadar Soomaaliya.